Waqtigay waayaha ayaa wiiqay, waana ruux soo arkay imtixaan adduun, balse dulqaad ayuu kaga soo gudbay. Gidaaradii uu gabaadsan jiray, Allah ayaa baasiyey. Ma jirin muddo ka hor, qofka walwalayay xaaladiisa caafimaad. Maxaa cunto qof lamuusan haysan shalay, balse maanta waxa uu helay naxariistii dadka. Ciladii ayaa uu hel Alla ugu bedelay, murugadii ayaa u xigtay farxad. Maxamed Nuur waa shaqsigii musiibada jaceylka ay haleeshay, waxaana uu ku dayacnaa in badan magaalada Kismaayo. Sanado badan kaliya ayuu ku ahaa wax cunida, balse maanta waxa uu saxanka cuntada gacanta la gashanayaa kooxdada oo ku faraxsan la joogitaankiisa. Maxamed waxaa hadda si tartiib ugu soo laabanaya wax kasta oo tayo leh oo dunidan sanado badan uusan ku haysan. Hilib muddo uusan arkin ayuu ilkaha saaray, dad uusan muddo dhex fariisan ayuu dhinac kala jaanqaaday. Dalxiis muddo uusan indhaha saarin ayuu ku tegay duleedka magaalada Kismaayo. Dhar nadaafad leh oo muddo uusan xiran ayaa loogu labisay. Qubays muddo uusan arkin ayuu si joogto ah hadda ku helaa. Iidle Aadan oo ah wariye samafale isla markaana ku nool magaalada Kismaayo ayaa Sharmaarka Media u sheegay in xaaladda Maxamed hadda ay soo hagaagayso isla markaana weli lagu daryeelayo xarun lagu hayo oo ku taala magaalada Kismaayo. Dad badan ayaa aad ugu farxay soo kabashada caafimaad ee Maxamed, waxaana Alla ugu baryaynaa inta caafimaadkiisa ka harsan Maxamed in Alla uu dhammaystiro. Dad badan ayaa mar waliba dhagta u taaga xaaladda Maxamed iyo sidoo kale waxa ku soo kordhay, laakiinse noloshiisa saxda waa midan ee Allah u sii dhammaystiro inta ugu harsan farxadda Maxamed kaga dhiman caafimaadkiisa. Mar waliba ku xirnow Sharmaarka Media.